wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo agaasimaha Midowga Yurub u qaabilsan horumarinta caalamiga Master Stefana ayaa si wada jir ah maanta u saxeexay 13 milyan oo euro oo Midowga Yurub ay ku maalgelinayaan mashruuca horumarineed ee Engineer Yarisow oo ka qayb qaadanaya horumarinta magaalooyinka Muqdisho iyo Berbera. mashruuca Engineer Yarisow qaybtiisa Muqdisho oo lagu maalgelinayo 15 milyan oo euro ayaa si casri ah loogu dhisayaa wada dhererkeedu yahay 17 kiiloomitir halka qaybtiisa Berbera lagu xoojinayo awoodda dawladda hoose ee qorshaha horumarinta magaaleynta iyo horumarinta dhalinyarada. munaasabada lagu saxiixay heshiiska ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya iyo qoyska Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan. agaasimaha guud ee Midowga Yurub u qaabilsan horumarinta caalamiga Master Stefana Mastafisi ayaa munaasabada saxiixa ka sheegay in mashruucan uu qayb ka qaadanayo hirgelinta hindisihii iyo riyooyinkii nabadda iyo horumarinta gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay Engineer Yarisow, qaybna uu ka yahay qorshaha Midowga Yurub uga qayb qaadanayo horumarka Soomaaliya. In signing this project, because this project is let's say is a special one. It is not only, let's say, a way to intervene on the coastal area, Berbera and Mogadishu, but because it is coming from basically the inspiration and the vision of former Major Yusuf here. A man that I admire a lot. I have the opportunity to meet with him several times, and I've seen his vision and his commitment. We were together in October last, remembering the attack of the 14th of October at Pika 5, and we're together with the people of Mogadishu, and I've seen how he was embedded into this town, into this country. I met with him in Brussels, and we share about what was the message for the new Soomaaliya, in which Mogadishu and Benadir are the center. So therefore this project for me is particularly important, not only because I think it's an evidence more of our commitment vis-à-vis Somalia, but also it is a special moment because it is the recognition of the vision and commitment of people represented by Major Yusuf, Governor of Benadir and Major of this town. wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo munaasabada heshiiska mashruuca Engineer Yarisow ka sheegay inuu ka qayb qaadanayo dadaalada horumarineed ee dalka, waxa uu cadeeyay in dhawaan la hirgelin doono si ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideystaan. mashruucan waa mashruuc 15 milyan gobolka Banaadir magaalada Muqdisho la rabo in lagu sameeyo wadooyin mashruuci hore u socday oo gudoomiye maanta la joogo iyo 7 milyan iyo bar aan ugu talagalay in magaalada Berbera wax laga qabto lacagtaas oo lagu sameyn doono arrimaha dawladda hoose u baahan tahay sida hagaajinta jidadka iyo bulaacadaha iyo meelaha muhiimka ah magaalada Berbera. lacagtaasna rabnaa hadda Midowga Yurub ku daaqay inaan saxino wasaaradda goobjoog ka yahay Midowga Yurubna goobjoog ka yihiin arrimaha Soomaaliya looga faa'iido. barnaamijka ra'iisul wasaare arrintaas maanta u nimi waxaan hadiyada inaan arrintaas ku soo gabagabayno dadka Soomaaliyeed ugu bishaarayno in mashruucaas uu hirgeli doono dhawaan hadiyada. heshiiska Midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya ay maanta kala saxiixdeen ee lagu horumarinayo magaalooyinka Muqdisho iyo Berbera ayaa qayb ka ah qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee lagu xoojinayo awoodda dawladaha hoose iyo bilicda magaalooyinka dalka. Nasr Basheer Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.